boqorkii guud ee reer Sheekh Isxaaq ee la yaqaanay ayaan la sameynaya toddobadii kale ilma Sheekh Isxaaq ama ha noqdaan magaado ama xabasho ha noqdaan toddobadiiba waxay leeyihiin sandaladani waxay sandal soo jirtay guurbe lama oran karo ma sameyn kartaa boqor buur mudan loo bootan karo rag loo bootayna mani idinku ayaa anagoo habar jecla waxaanu nahay dhigi cabadii dhiga kulula hargeysana la isku faasa dhaqayn karo wuxuu yiri ninkii jiray hadan shimbir ka baqay iyo haruur ma beerteen hadaan ka baqano ciida galay iyo garxajis hotel garaadi kuma maaqnina ma naan dhaaneen waxa weeye hotel garaadi baan ku soo bandhiganaa bisha koobaad ee 2025 ayaan ku boqor ku dooranay ayaan ku calaam saarana indhihiino shanana waa lagu calaam saaray kowda bisha 15 2025 bay ka dhacaysaa garan haadi cidiidi kartaana ma jirto cid anaga noo hanjibi kartaana ma jirto wuxuu nagu hanjibayaa ninka la dhaho Jambir shalay markii uu gala dagaalku lahaa ninkii hebel baadi maxaa la dhahaa ninkii xaqan haystay reer Laascaanood ee garaadka sheegan jiray markuu shalay toolo reer Sheekh Isxaaq caayay lahaa waxa weeye nasabiyada ka saarayuu lahaa nasab ma ku jawaabaye magaca reer Sheekh Isxaaq ilaalinay inuu qof yaro halkan kalarka lahayo marbal ayuub iyo waxaynan garanayeen magaca lagu sheegay inta kalarka la soo qabtaa kan la soo istaajiyo waxa la idhe raaligelin uga bixin waayo uga hadli waay Jambirin ku halkan ka soo ooyay muxuu taa uga hadli waayo oran waayo waxa weeye khalad bay wixiina waxa weeye ka yariga qabo ka weynigu soo maxay taa uga hadli waay maxay maanta isugu faataa dhaqaaleena ilma Sheekh Isxaaq oo dhanbaale waa sandalad jirtay oo waxa weeye weligeed ba soo talin jirtay hal caleema saaro magacan uu sitee beentaay uu leeyahay sandaladii reer Sheekh Isxaaq ma haystaa ayaa laga saaraya meesha waa cadaan taas wasaas waxa leeyahay shakibu kuma jireen nimanku gariya waaqbay la qaylinayaan nafta haysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guud ahaanba meel kasta joogtaan saaxiibayaal aad iyo aad baan idin salaamayaa caawa waxaan la kulmay aqoon-yahan siyaasi Salaad Axmed Shire oo ka mid ah dhalinyarada reer Somaliland aqoon-yahanka waxaan su'aaliye laba ka weydiinayaa arintan baryahan khilaafka badan keentay ee boqorka reer Sheekh Isxaaq ee la dooranayo siyaasi Salaad Axmed Shire saaxiib ku soo dhow Kennedy Media waxaana nooga jawaabtaa bal arintan sidaad u aragto bismillaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wareen waa ku salaamayaa saaxiib aad iyo aad baad mahadsan tahay waxa weeye arinta hadaynu ku horeyno ku saabsan ruux baraar ee Axmed Sheekh Isxaaq horta marka hore waxay ahayd sandalad guuna oo uu lahaa Axmed Sheekh Isxaaq oo ugu weynaa ilma Sheekh Isxaaq waana taariikh jirta nin kasto reer Sheekh Isxaaq sideedii haamood reer Sheekh Isxaaq nin kastana wuu ogyahay taariikhda uu haya inuu ahaa boqorkii guud ee reer Sheekh Isxaaq sideed haamood reer Sheekh Isxaaq sideed maanta taariikhda uu haya ayuub baa haya arab baa haya muusa haya muuse Sheekh Isxaaq maxamed Sheekh Isxaaq baa haya inaan ogeyni ma jiro taariikhdaas markay taa tahay ciida gale waa loo ogyahay taariikhda say ku timi sandaladooda waxay ahayd wax samayso aan reer Sheekh Isxaaq aanu la dooran sida taariikhda laga warhayo iyaguna ay ogyihiin ma yahayn sandalad reer Sheekh Isxaaq ay calaam saareen sida taas oo kale wax samaysa bay hadii laba xoog ku samaysan salaad oo ka dhex gala markaas xoog bay ku samaysteen waxa iyaga ku kooban bayd garaacis ku kooban bayd sideedan ilma Sheekh Isxaaq nin waliba siisu madax banaana laakiin taa Axmed Sheekh Isxaaq waxay ahayd sandalad guura oo ilma Sheekh Isxaaq oo dhan uu talin jiray wuxuuna ahaa curadkii ilma Sheekh Isxaaq intaa isku diidani ma jirto waa qodobka xiga waxa weeye waxay leeyihiin sandaladan anaga hayn jirnay oo waxa weeye anaga waligeeyo soo inta soo dhanbay soo tirsatay oo waka waxa la ciida galaale hadii iyagu ay leeyihiin ilma Sheekh Isxaaq waa de oran lahaa ayaa la dooran lahaa anigoo muuse Sheekh Isxaaq oo nin habar jeclaa oo xabuusha lama doorantay mana cadeyn karo ma oran karo way la dooratay laakiin sideed ilma Sheekh Isxaaq way ogyihiin maanta inuu Axmed Sheekh Isxaaq ahaa sandaladii guud ee reer Sheekh Isxaaq marka maanta yima diidi karo anoo xabuusha ima oran karo boqorka guud ma samaysan kartid boqorkii guud ee reer Sheekh Isxaaq ee la yaqaanay ayaan la sameynaya maadaama ayuub suldaanka ay samaysteen toddobadii kale ilma Sheekh Isxaaq ama ayuub ha noqdaan ama ha noqdaan magaado ama xabasho ha noqdaan toddobadiiba waxay leeyihiin sandaladani waxay sandal soo jirtay guurbe
lama oran karo ma samayn kartaan صح boqor buur mudan loo bootin karo هي rag loo bootayna mani إذيك هيا annagoo habar jeclaa هي waxaanu nahay dhigiya cabadii dhiiga kulula واقع hargeysana la iskuma faasaa dhaqayn karo هي wuxuu yiri ninkii jiray haddaan shimbira ka baqay buu haruur ma beerteen واقع haddaanu ka baqano ciida galay iyo garxajis hotel garaadi kuma maaqnina ma naan dhaahneen waxa weeye hotel garaadi baan ku soo bandhiganaa bisha koobaad ee 2026 أنا كو بقر كو دورنا ayaan ku calaam saarana هي indhihiino shanana waa lagu calaam saaraya واقع kowda bisha 15 2026 هي bay ka dhacaysaa garan haadi واقع cid diidi kartaana ma jirto cid annaga noo hanjabi kartaana ma jirto wuxuu noogu hanjabayaa ninka la dhaho Jambir واقع shalay markii uu gala dagaalku lahaa ninkii hebel baad maxaa la dhahaa ninkii xaggan haystay reer lascanood ee garaadka sheegan jiray markuu shalay toolo reer Isxaaq caayay lahaa waxa weeye nasabiyada ka saaray uu lahaa nasab ma ku jawaabaye magaca reer Isxaaq ilaalinay inuu qof yaro halkan kalarka lahayo marba ayuub iyo waxaynan garanayeen magaca lagu sheegay inta kalarka la soo qabtaa kan la soo istaajiyo waxa la idhe wuxuu raaligelin uga bixin waayo uga hadli waayo Jambirin ku halkan ka soo ooyay muxuu taa uga hadli waayo oran waayo waxa weeye khalad baa wixii waxa weeye ka yariga qabo ka weyn ugu soo maxay taa uga hadli waayo maxay maanta isugu faataa dhaqaaleena ilmasha Isxaaq oo dhan baale waa sandalad jirtay oo waxa weeye weligeed ba soo talin jirtay hal caleema saar waxaan ku uri aqoonyahay si loo yahay Suudaanka guud ee reer Isxaaq waa ila gala haye midadu doonaba ha soo jira ama adigu waxaad sheegtay inuu yahay gacan ku samaysiyo bacrimis waxaad sheegtay inaan reer Isxaaq sidii ilmasha Isxaaq u dhamay markii la sameeyay ee garaaci isagu iyagu caleema saaray si kastaba ha noqotee Suudaanka reer Isxaaq ayuu ahaa maanta waxa la sameeyay Suudaanba soo boqol maanta ana halka kaaga jawaabay sida lagu sameeyay ku yar noqonaya naabwan garxajis wuxuu ka kooban yahay Daawud iyo Saciid khilaa ayaga dhexdooda hawl taalay bay habriyoon isku soo riixday sandaladan oo dhahan waxa weeye cidagalow waxaan idin haynaa waxaan dadku bahayne sandaladii reer Isxaaq saa ku qaata waa wax garxajis dhexdiisa waana wax cidagalo loo sameeyay bahay todobada kale ilmasha Isxaaqna meesha ay joogin waxay la doorteen ma yahay taasi waa taasoo de reer Isxaaq oo dhanba ogo ayaa diimka boqor la dooranayo wax la dooranayaa boqor tahay ila boqor iyo Suudaan way kala duwan yihiin oo yahay boqor guud oo reer Isxaaq maxay la qaynayaan Suudaanka guud mid baa ka qaaday mid baa ku haysataa Suudaan guud baa la sameeynaya maxay tahay isku maxay ka qaylin waxay ka baqayaan waxay ka baqayaan baan kaaga jawaabaya si yar oo fudud waxay ka baqayaan kan yare Suudaanka sheeganaya ee fargalada sita ayaa lagu noominad gareynayaa boqortinimada lana gaban mayna waa run waa lagu noominad gareynayaa waxa magacan uu sitee beentaay uu leeyahay sandaladii reer Isxaaq ma sitee ayaa laga saarayaa meesha waa cadaan taas watas waxa leeyahay shakibu kuma jireen nimanku garya waaqbay la qaylinayaan nafta haysa waanu ka saaranaa meesha anagoo xabushaaba ka saaranaa boqorkii reer Isxaaq baa la sameynaya ee rasmiga ahaa reer Isxaaq kale ma idin kula socdaan waa nugula socdaa waxa nugula socdaa Arab waxa nugula socdaa awal oo dhan waxa nugula socdaa Ayuub waxa nugula socdaa tii saddexdaas baday nugula socdaan xalamkan saddex afartii xabashana waa wadanaa nologuma faataa dhaqayn karo Hargeysa boqorkii reer Isxaaq baa la sameynaya qarnigii 12aad baa la sameynaya wuxuu ka bedelayaa boqorku Hargeysa ilaa habar jecel deegaanku ma ahe hadii la doorto wuxuu ka bedelayaa Hargeysa wuxuu ka bedelayaa boqor Hargeysa laga faataa baqlaynayo wuxuu ka bedelayaa soo deegaan bas ma noqonaysa marka ana kaaga jawaabay si rafud marka hore nimanka Turjeclo la dhaho Axmed Turjeclo markii sandaradan laga qaadiyay reer Isxaaq ay ka qaadiyeen taariikhdeeda wallahi habar jeclo uma hiilin oo halka waxa weeye maanaan hiilin si kastaba ha noqotay maanta nuu hiilin oo qarnigii 12aad la maray baa la doonayaa inuu hiilin waana nuu hiilin garan haadina waanigi ku lagu soo bandhigayaa kowda bisha 15aad 2026 baa lagu soo bandhigayaa waxay wax ka bedelaysaa Somaliland bay wax ka bedelaysaa Somaliland qabyaalad iyo burbur heer Isxaaq dhexdiisa oo maanta muuqda baa jira taasaanu ka shaqeynaa ku shaqeynaa boqor tan imika burbur ka shaqeynaysaa oo baa jecel leeyahay qasba bay wadanka gelisay oo maalmaha foosto soo riixiyay oo sandaladii guud baa ku haysataan oo imika sandaladnimadii
تعرف تركيز هذا من قص يقع على سكن تي بوق ودك بخلق الجلسي من لو ركريني كا ودك بخلق خلني تا ورج على تي ما لما oran karo waxaan loo oran kaban ku jeegaynaada tanna isku dili kariba la isku dili karo habar nimanka reer Xisaaq waa 8 haamood 7 kamid ah sandaladna dabada ka riixay garxajis oo dhan yaan waliba aad saarine nimanka habariyoonis way ka eedlayeen way wadaan bahashan oo ina lagu riixayaan waxa qaylinaya waa cida gale habariyoonis way riix iyaga waa foostada riixayada foostada ha qayb ka yihiin oo xaqiiqi riixaya markaa wala ya kamida masalaadiinta dawladda iyo aqalku weyn laga soo riixaya foostada xagee laga soo riixay waxa laga soo riixaya baan ku sheegaya si rafdudan ku sheegaya intii qayladani socotay iyo dagaaladan social media socdeen ma inaan arag nin dhaqan oo habariyoonis oo waxa weeye ka hadlaya bahashan oo difaacaya sandaladan marka taas waxa ku cadeynaysaa in aqalka weyn laga soo riixay ama meel kale laga soo riixay inay habariyoonis iyadu ay ogoshahay saan anigu xogaa ku hayana dhaqanka habariyoonis ma diidan boqorka reer Xisaaq haddaan u soo noqdo su'aashaadii ahayd miyaanay ku burburayeen sidaan wax wadaan habar jacmeen wax ku burburin kuma burburinayso habar jacro waa la yaqaan taariikhdeeda ilaa iyo maalinka maanta wanaag waxaan ahan kama shaqeynay reer Xisaaq midnimadiisa haddii reer Xisaaq maqashana waxa weeye waa reerka loo yaqaan xabuusha waa habar jacro malihin aan halka ku sii waday malihin dhaqan inaynu burburino Somaliland iyo reer Xisaaq toona way ugu dambeyn suldaanka reer Xisaaq ama cida kala baan ilaahday Suldaan Daawud min halan kari waayay sandaladii maxaa keenay in waqtigan foosto lagu soo riixo ama la soo weeraro sandaladii Suldaan Daawud dayac badan baa ka muuqday marka runta laga hadlo leeso ag taago in maanta la dhaho waxa weeye ila marka hore uu sheegin jiray sandalada si kastaba ha ahaadee sandalada reer Xisaaq uu sheegin jiray laakiin dayac baa muuqday dayacan yarayno loo dul qaadan karin baa muuqday waxa weeye wajibaadkiisu gudan waa jacbaad baa tusaale wahay inuu kulanka soo qabto halkan agtay soo istaago waxa weeye waxa doonto waxaan ku hadlay iga daba dheh ayaa tusaale wahay waxa tusaaladu hayd kii magaca reer Xisaaq iyo magaca Soomaaliland ku dhibanayay boqor buur madow waxa weeye xaalka ka bixinay waxa soo dhan ba sabab wahay waa la og yahay waxa weeye maalin kula lama arki karo ma sheegi kartid isagoo nin dhaqan la socdo ciyaalka yar iyo jajabantu raaca okay ugu dambeyn halkan maxaa baaqo ka jiraysaa raggan boqor buur madow hanjabay iyo habar jaclo waxaan leeyahay habar jaclo maaha cid loo hanjabi karo waana la yaqaan anaga waxba jaambiriyaan oo dhan dhuxulada baad ku ciyaarsan yaga dhuxulada ma habar jaclo war dhuxul baad sheegaysaa holac baa ka soo baxa habar jaclo waa la og yahay habar jaclo Soomaali Maxamed oo dhan baa og waxaanu nahay inaynu ololnahay inaynu meeshan anagu ilaalino iyaga laftooda aan mas'uulkana ina jaambir waa kii hanjabayay muxuu uga hadli waayay shalay toole markuu nagu calacalayo lahaa waxa weeye waan noonay nafta nagu qabta markaan ku qabanay doonay maanta inuu dhaho waxa weeye marada sheegaysaa waan ku qabanay waa ku xidhnay maanta nagu ma hajibi karo Hargeysa Axmed oo jeclaa Hargeysa joogana waxa weeye deewaanina xabusha ma hajibi karaan annagana ma hajibi karaan weynay ogyiin waxaan u maleynayaa waxa ka hadlinaya hadalkan badani waa calaacalan weeyaan waxa la xisaamin karaan ma jiraan garahaad baa lagu qabanaya hadduu wax isla hayo dab soo hindis baanu leenahay okay aad iyo aad baan saaxiibayaal idin salaamayaa kaasina waxa uu ahaa siyaasi aqoon-yahan Salaad Axmed Shire anigoo awaan Kanadiya ayaa waraysi ka qaaday halkaad naga daawanaysaan waa Canadian Media muuqaalkana share gareeya aad baan salaam